kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa barteena YouTube-ka ee National TV qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo heshiis shidaal qodis ah la gashay shirkad caalami ah iyo xog culus oo laga helay wasiirka batroolka Soomaaliya oo qarxiyay xog uu arintan ka hayay ayaan macluumaad idinkaga haya dagaal cusub oo ka dhex qarxay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyaga oo soo saaray warqado iska soo horjeeda Roble hanjabaad culus ayuu soo saaray wararkii ugu dambeeyay xog arintan ku saabsan ayaan eegi doonaa wararkeena kalena waxaa kamid ah Fahad Yaasiin oo la guddoonsiiyay shahaadada murashaxnimada xilli doorashada kursiga loo xiray ay bari ka dhacayso magaalada Beledweyne madaxweyne Farmaajona waxa la sheegay in aan lagu casuumin shirkii midowga Yurub iyo Afrika wararkaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa habeen Sabti ah axad ayaa soo galaysa 19 Febraayo 2022 fadlan daawade aan ka qayb qaadano dhismaha dalkeena anagoo ka fogaanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasi nala fahantaane nala faafiyo warkan idinkoo ku shargareynaya baraha bulshada aan ku bilaabo warkeena khilaaf cusub ayaa ka dhex qarxay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo dhowr mar oo hore sidan oo kale isku khilaafay khilaafkan cusub ayaa salka ku haya heshiis shidaal qodis ah oo la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay la gashay hay'ad caalami ah wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay inay la saxiixdeen shirkadda Coastline Exploration Ltd Exxon Oil 7 xirmood oo shidaalka ah isagoo sheegay inuu ku garabsiiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukuumadda Soomaaliya ayaa horay ugu dhawaaqday in aan wax heshiis ah la gali karin inta lagu guda jiro xilliga kala guurka ah waxaana iminka muuqata in qorshaha lagu suuq geynayo xirmooyinka shidaalka ee horay loo sahmiyay uu yahay mid dhaqaale lagu raadinayo dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal soo saaray ayaa sheegay inuu buriyay heshiiska uu galay wasiirka batroolka qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka waxay cadeynaysaa in heshiiska uu saxiixay wasiirka batroolka iyo macdanta uusan wax wada tashi ah kala yeelanin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo la tixraacayo wareegtadii uu madaxweynuhu soo saaray 7 Agoosto sanadkii 2021 taasoo lagu joojiyay inaan la geli karin wax heshiisyo ah xilligan lagu jiro doorashooyinka qoraalka Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri madaxweynuhu wuxuu mar kale farayaa dhammaan hay'adaha dawladda inay ka fogaadaan xilligan xasaasiga ah in hantida dadweynaha looga faa'iideysto si aan u adeegaynin danta guud qof walbana lagula xisaabtamayo ku tagrifalka hantida qaranka madaxweynuhu wuxuu adkeenayaa in hay'adaha dawladda ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo dhaawici karta sumcadda dawladda iyo hay'adaheeda halkaasi marka ay xaaladdu marayso xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa war ka soo saaray heshiiska la sheegay in wasaaradda batroolka Soomaaliya ay la gashay shirkad shidaalka baarta oo laga leeyahay dalka Mareykanka qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu shaaciyay in heshiiska ay gashay wasaaradda batroolka uu waxba ka mijraan yahay isagoo ku goodiyay inuu tallaabo qaadi doono qoraalka ka soo baxay xafiiska Roble ayaa lagu yiri heshiiska la sheegay in wasiirka batroolku uu soo saxiixay ee la xiriira arrimaha shidaalka Soomaaliya waa mid sharci dara ah oo aan loo marin wada sharci ah sidaas darteeda waa waxba ka mijraan ayaa lagu yiri qoraalka Roble sidoo kale qoraalkan ayaa intaas ku sii daray ra'iisul wasaaraha ayaa qaadi doona tallaabooyin sharci ah oo looga jawaabayo falkaasi xadgudubka ku ah hantida qaranka iyo dhaxalgalka jiilalka soo socda si loo ilaaliyo ammaanada ummadda Soomaaliyeed shirkadaasi oo lagu magacaabo Coastline Exploration Limited Coastline ayaa laga leeyahay dalka Mareykanka waxayna maanta shaacisay in wasaaradda batroolka Soomaaliya ay la saxiixatay 7 heshiis oo wax soo saar wadaag ah kuwaasi oo dhigaya in shirkadu ay shidaal ka baari doonto gunta hoose ee biyaha Soomaaliya wixii ku soo kordha khilaafka cusub ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan waayahay qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan fadlan subscribe saar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno uu ku soo gaaro
markana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan lagu casuumin shirka Midowga Yurub iyo Afrika ee magaalada Brussels ee dalka Belgium ka furmay sida aan ogaanay. Midowga Yurub ayaa magaalada Brussels ku soo dhaweeyay in ka badan 40 hogaamiyayaal oo Afrikaana si uu soo ceshto saameyntiisa gobolka oo hadda ay ku xoogan yihiin Shiinaha iyo Ruushka oo saameynaya maalgashi xoog leh oo ay ku yeesheen qaaradda. sidaan ogaanay sababta aan madaxweyne Farmaajo loogu casuumin shirka Midowga Yurub iyo Afrika ayaa lagu sheegay inay tahay inuu dhamaaday waqtigii uu dastuurka u ogolaanayay inuu madaxweyne ka sii ahaado Soomaaliya. sidoo kale arintan ayaa loo sababeeyay inay tahay siyaasadda murugsan ee gudaha Soomaaliya ka taagan, taasi oo la sheegay inay sabab u tahay. Mareykanka ayaa dhawaan sheegay inuu xayiraad fiisa saaray madaxda Soomaalida qaarkood, inkasta oo aan la shaacin magacyada, haddana waxaa la rumaysan yahay inuu ku jiro madaxweyne Farmaajo. Midowga Yurub ayaa ballan qaaday in uu dalalka Afrika siin doono taageero xoogan si loo xoojiyo caafimaadka, waxbarashada iyo xasiloonida Afrika. wuxuuna ballan qaadayaa kala bar maalgashi cusub oo dhan 300 bilyan oo euro oo la bilaabay si loola tartamo hindisaha Belt iyo Road ee Shiinaha. dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin sababta uu madaxweyne Farmaajo uga baaqday shirkaasi, waxaana shirkaasi Soomaaliya uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali. wararkeena kale haddaan eegno, guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa shahaadada murashaxnimada guddoonsiiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo u tartamaya kursiga tirsigiisu yahay Hoob Eber 86. Fahad oo hadda ku magacaaban la taliyaha amniga qaranka ayaa gaaray maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo biri ay ka dhacayso doorashada 6 kursi. guddiga maamulka doorashada Hirshabeelle ayaa shahaadada murashaxnimada guddoonsiiyay dhammaan murashaxiintii u tartamaysay kuraastii guddiga shaaciyay taariikhdu markii ay ahayd 15 bishan Febraayo 2022 ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada Hirshabeelle. murashaxiinta shahaadada lala guddoonsiiyay Fahad Yaasiin ayaa u kala tartamaya kuraasta kala ah Hoob 8, Hoob Eber 15, Hoob Eber 74, Hoob Eber 86 oo ah kan Fahad Yaasiin, Hoob 109 iyo Hoob 274. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isku dayay inuu kursigan hor istaago ayaa ku guuldareystay kadib markii ay ka hor yimaadeen inta badan xubnaha guddiga doorashada heer federaal. halkaasi ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteena YouTube-ka ee National TV oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. inta ku kulmi doono wararkeena soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. warar noocee ah ayaa doonaysaa? ma wararkii ugu dambeeyay? ma dhacdooyinka ka yaabiya? mise kuwa ku dhiirigeliya? ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda? hadday jawaabtaadu haa tahay National TV ka dhiga wehelkaaga. booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV, subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga.